waqooyi bari TV kusoo dhawow bogga aan ku leenahay YouTube-ka ee waqooyi bari TV fadlan si aad u heshid wararka ayada fadlan subscribe saar jalasku waxa kuu sahlaya inaad si fudud ka heshid wararka ayada mahadsanid lixdan guuradii ka soo wareegtay markii la helay calan Soomaaliyeed oo xora isla markaana laga baxay gumaysigii Ingiriiska 26 Juun ayaa munaasabad loogu dabaaldegayo lagu qabtay magaalada Buuhoodle dhinaca kale waxaa dadweynaha ka soo qayb galay munaasabada 26 Juun loogu dabaaldegayo ay ka hadleen shirkii dhawaan ka dhacay dalka Djibouti iyagoo sheegay dhinaca kale shacabka gobolada Sool Sanaag iyo Cayn yihiin dadkii u soo halgamay in la helo xornimo Soomaaliyeed oo xora isla markaana la baxay magaca daraawiisheed waxaa halkan ka hadlay qaar ka mid ah qabanqaabayaashii dibad baxan ka dhacay magaalada Buuhoodle alxamdulillaah rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wasallam dhalinyaro aad iyo aad baan salaamaya magacaygu waa Bashiir Ismaan Cabdixaashi maanta oo ay tahay 26 Juun waxaan doonaynaa inaan hambaliyada la wadaagno Soomaali meel kasta ay joogto wadaliyo dibad waxaan leenahay hambaliyo sanad guuradii 60aad ee maalintii xorriyadda qodobkayga labaad wuxuu daaran yahay inaan ka hadlo gobolada Sool Sanaag iyo Cayn in ayna iibahayn forseel lahayn oo aan nahay ummad Soomaaliyeed oo tashan karta maamul leh madax leh oo dadkooda iyo dadkoodaba u shaqeyn kara danahoodana ka hadli kara oo aan ahayn wax la yiraahdo distributor area ee aan nahay dad Soomaaliyeed oo ilaa daraawiish ah oo dadka Soomaaliyeed kamida aan cidina haysanin cidina soo kaay haysanin marka sidaa daraadeed waxaan doonayaa inaan hambaliyadaas u diro Soomaali weyn hadalkaygana aan ku soo koobo isagoo kooban Sool Sanaag iyo Cayn iibmaaha awooyaashayna ma iibin aabayaashayna ma iibin annagana iibnagamaha hadafkayaga iyo himladeedu waxa weeye Soomaali weyn sinaan iyo cadaalad Soomaali oo isku tagta oo mid noqota wada siman oo nin walba statekiisa iyo gobolkiisa iyo danihiisa u tashanayo madaxweynihiisa leeyahay baarlamaankiisa leeyahay iyo cadaalad lagu dhaqmo oo ay cadaaladii ka wada dhaqayso oo ka koona qofka Soomaaliyeed meeshu doonayo ku noolaan karo maanta wuxuu qusayaa waxaan uma aha u hambalyeynaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed ana ugu hambalyeynaya 26 Juun oo ah maalinta xorriyadda qaadanay sanad guuradii 60aad ee ka soo wareegtay maalintan xornimada qaadanay waxaan u hambalyeynaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogan gaar ahaan waxaan u hambalyeynaya ummadda reer Sool Sanaag iyo Cayn oo ah dadkii ka dambeeyay xafladan iyo dabaaldegan ummadda Soomaaliyeed dabaaldegayso gaar ahaan waxaan u hambalyeynaya haweenka Soomaaliyeed meel walba joogan raxiim magacaygu waa Cilmi Samatar Baxnaan ahna gudoomiyaha xisbiga nabad iyo nolol qaybtiisa magaalada Buuhoodle 60 sano ka bacdi waxaan u dabaaldegnaa dhaxalkii awooyaasheen looga tageen in maanta sidan oo kale si xorriyad aan ugu dabaaldegno daraawiish waxay ahayd nasri ee buu soo diray Soomaali maanta maanan haysaneen dhaqan diin iyo sidaan iskugu duwanahay waxaan maanta u ducaynaynaa 60 sano ka bacdi awooyaasheen oo ogsooneyn ay gaareen heer maanta in lagu soo weeraro diyaarado ahayna dalkii koowaad iyo dadkii koowaad ee lagu soo weeraro diyaarado ilaahay waxaan ugu baryaynaa inuu ugu bedelo maanta dhaqanka iyo diinta aanu haysano ajar iyo abaal magacay waa Axmed Yuusuf Cali waxaan ahay xubin ka mid ah xisbiga nabadda gobolka Cayn runtii waxaan doonayaa in hadalkayga ku soo koobo saddex arrimood mid waxa weeyaan waa hambaliyo iyo bogaadin aan la qaybsanayo ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay dhammaan Soomaali weyn meel walba ay joogto runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay 26 Juun oo ah sanad guuradii 60aad ee ka soo wareegtay markii aynu helay xorriyadda markii aynu caalamka magarasa qayb ka noqonay oo ay noqonay dad jira oo magac iyo maamuus leh taas waxaan ka aad iyo aad aan leeyahay hambaliyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay ku nooshahay mid gaaran anigoo aan ka soo jeeda gobolada Sool Sanaag iyo Cayn gaar ahaan gobolka Cayn waxaan doonayaa in dhammaan shacabka reer saddexda gobol aan u sheego in aynu nahay dad jira oo magaranaysa wadaniina Soomaaliya inaynu nahay hooygii magaranaysa daraawiista dad magaranaysa magac iyo maamuus sharaf leh naga soo jeedaan inaynu ku nahay dadkii Soomaaliya soo keenay ee magaranaysa xorriyadda u soo dagaalamay alxamdulillaah rabbil caalamiin magacaygu waa Caynaan Sheekh Maxamed Madadaal
waxaan ahay gudoomiyaha naadiga akhriska qoraalka jaamac Umar Ciise maanta oo taariikhda tirsiga taariikhda qoraxda ku tusmaysan tahay 26 Juun waxa jirta war-saxaafadeed ama shir Djibouti ka dhacay oo ahaa shirka wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya shirkaas waxa jirtay in lagu doodsiyo xaqii gobolada SSC waxa jirtay in dawladda ay tiri dispute area waxaan rabnaa inaan shucuurteeda muujino oo aan sheegno inaan ahayn dhul lagu muransan yahay dad jira oo ah sida xorriyadda haddaba aynu ugu dabaaldegayno aanan u rabno inaan xornahay aanan cidna uga daba fadhiisanaynin qadiyadayada iyo xorriyadayada iyo inaan dad jiranahay ismaamulina karayno doonayna inaan iyana raacino